8 Febraayo 2019 waxa ay ku beegan tahay sanad guradii ka soo wareegtay sanadkii labaad oo uu xilka hayo madaxweynaha ku yimid rabitaanka shacabka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa waxqabad kooban oo ka hadlaya wixii uu qabsoomay dawladda Soomaaliya laga soo bilaabo 8 Febraayo 2018 iyo maanta oo ay tahay 8 Febraayo 2019. sanadkii hore wuxuu ku curtay saasaan wanaagsan iyo dadaal ay dawladda iyo dadka Soomaaliyeed u galeen ku hirashada han iyo hiigsi mudan gaaridiisa kaas oo ah dawiyagleelida dawladnimo buuxda. waxa si tartiib ah u soo laabanayay adeegyadii dawliga ahaa kaabayaashii dhaqaalaha iyo amnigii. sidoo kale waxaa guulo waaweyn laga gaaray xiriirka caalamiga ah, helitaanka garsoor la isku hadlayn karo. waxyaabaha kale ee la qabtay waxa ka mid ahaa dib-u-heshiisiin laga soo bilaabay gunta hoose, doorashooyin dalka uga dhacay si xor ah iyo u diyaar garowga doorashooyin xisbiye ah oo dalka ka dhaca 2021. aynu ku bilownay dhinaca dib-u-heshiisiinta, dhacdooyin iyo taariikho aan la ilaawi karin ayaa dhacay. waxaa ka mid ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safar dhinaca dhulka ah ku soo maray 5 gobol oo ka mid ah dalka. safarkaasi waxaa loogu magac daray safarka nabadda iyo dib-u-heshiisiinta. wixii ka dambeeyay burburka waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee safar dhulka ah ku mara gobolada dalka oo intaas leeg. safarka madaxweynaha waxa ka dhashay natiijo wanaagsan oo ilaa hadda miraheeda la guranayo, taas oo ay ka mid ahayd dib-u-heshiisiin la dhex dhigay beelo Soomaaliyeed oo sanado badan ay colaadi u dhaxaysay. hadda waa nabad, qori iyo xabad la isku rido. waxa ugu dambeysay maalinkii uu madaxweyne Farmaajo halkaasi tegay. dhacdooyinka kale ee ilaa hadda lagu naaloonayo waxa ka mid ah qaadista khadkii cagaarnaa ee u dhaxeeyay shacabka walaalaha ah ee wada degan magaalada Gaalkacyo. meesha kaliya oran karo inay tahay inaan ka bilaabo dib-u-heshiisiinta waxay igu muuqatay inay tahay magaalada Gaalkacyo. waxaan rabnaa inaan dhammaystirno isagoo islaamku uu horseed noo yahay, hormood noo yahay, salaadiinta kale oo la shaqeynaya, culimaadudiinka iyo siyaasiyiinta labada dhinacba, in magaaladan ay noqoto magaalo rugti ganacsiga ee gobolada dhexe ah oo ganacsigii iyo maalgashigii u yimaado dhalinyaradu ay shaqo ka helaan. dhinaca Shabeellada Hoose waxaa la soo afjaray colaad sanado badan halkaasi ka taagnayd. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho ku tagay magaalada Marka oo ay cadowga shabaab ka xoreeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. qabashadii ciidamada iyo safarkii madaxweynuhu halkaasi ku tagay ayaa keenay in lagu guuleysto dib-u-heshiisiinta beelo walaalo ah oo deegaanka wada degan. dhalinyaradii labada dhinac ee qabiilka qoriga u siday maanta waa isku cadow oo hal cadow ayay leeyihiin, waxaana ay ku mashquulsan yihiin sidii ay degaankooda uga difaaci lahaayeen nabadiidka shabaab. dadka halkan fadhiya marka yaana rabin inuu noolaado. qof walba wuxuu rabaa inuu noolaado sooma yaa la noolaanaysaa marka ma keligaa noolaanaya. waxaa u baahan tahay deris, waxaa u baahan tahay degaan, waxaa u baahan tahay degmo, waxaa u baahan tahay gobol dad degan oo wada dhan yaa u baahan tahay. nin ganacsi keena, nin beer fasha, nin arday ah, nin macallin ah, nin sheekh ah. marka dadkaasi ma wada noolaan karaan marka haddii dagaal sokeeyo jiro. macnaheedu waxay tahay waxaad rabtaa inaad dhimato marka haddaad dhimanayso kulli waa la dhimanayaaye adduunkana inaan waxba ku lahayn oo adduunkaas ka xirto oo ileen nolol ma rabtide aakhirana dembi iyo cadaab ay kaaga horreysa ka warrama. cadaab iyo aakhiro oo dee macnaha waxa weeye waqti aan dhammaanayninna adoo qof dilay ama adoo qof dhibaateeyey ee nafta kaa baxdo ama adoo qof ciil u qaba, macnaheedu waxa weye adduunkana waxba kuma lihidin, aakhirana waxba kuma lihidin. marka waxaa la rabaa caqligeeda inaad la timaadaan, adduunkana si fiican ugu noolaataan, aakhirana ay janno iyo raaxo iyo ay idinkaga dambayso. macnaheedu waxay tahay go'aankaa qaadateen inaad hubka dhigtaan, go'aankaa qaadateen in dib-u-heshiisiin la galo. waxa ugu fiican aad samayn lahaydeen wey. dhinaca siyaasadda, arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah, dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waxa ay ku guuleysatay in caalamku uu Soomaaliya u arko xidig soo baxaysa iyo madal mudan maalgashi iyo horumarin.
Soomaaliya waxa ay si lama filaan ah uga soo baxaysaa mugdigii ay muddada badan ku jirtay. Marka la fiiriyo qiimeyn lagu sameeyo guulaha laga gaaray siyaasadda arrimaha dibadda sanadkii tegay, waxaa muuqanaysa in Soomaaliya uu isbeddel ku socdo. Dalkeena oo dhaca qaaradda Afrika ayaa xudun istiraatiijiyadeed u ah caalamka. Guulaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya gaartay waxa ugu horeeya kuwa laga gaaray geeska Afrika, sida ku soo noqoshada miiska talada ee IGAD, ka dhex muuqashada hawlaha ka socda qaaradda Afrika iyo caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa noqday nabadoonkii geyigeenna ilaa geeska Afrika, kadib markii uu qayb weyn ka qaatay xallinta colaado geeska Afrika ka jiray waqtiyo badan. Soomaaliya waxa ay tustay Afrika in dhibaatadeeda ay xallin karto iyadoo aysan gacmaha kula jirin wadamo shisheeye. Waxaana arrinkaasi bilow u ahaa markii madaxweyne Farmaajo uu diiday in gacan shisheeye ay ka qayb qaadato xallinta dhowr khilaaf oo ka dhacay gudaha dalka. Go'aanka iyo aragtida madaxweynaha ayaa gaartay geeska Afrika, waxaana uu nabadoon ka noqday soo afjaridda colaadii wadamada Eritrea iyo Djibouti. Labada dowladood ayaa isu soo dhawaaday iyadoo madax ka socota labada dal ay bilaabeen wadahadal rasmi ah oo ay garwadeen ka yihiin Soomaaliya iyo Itoobiya. Si taxaddar leh ayay Soomaaliya ula jaanqaadaysay isbeddelka ka socda gobolka. Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho taariikhi ah ku tegay dalka Eritrea. Heshiisyo dan u ah labada dal iyo guud ahaan gobolka geeska Afrika ayaa labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea ay soo kala saxiixdeen. La soo laabashada ay Soomaaliya la soo laabatay maqaamkii ay ku lahayd gobolka ayaa sidoo kale sabab u noqday in caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay soo gaaraan madaxda geeska Afrika iyo kuwa caalamka. Madaxweynaha Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka mid ah madaxda soo booqatay Muqdisho ee maalmaha ku sugnaa. taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dal noogu jirto bacdama dadkeena dhaqaaliyahanada ah dadkeena ganacsatada ah ay runtii aad iyo aad uga horeeyaan dadyooga kale oo dariska nala ah iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama regionka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay iyo dadkeena siday u fircoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iideysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah. weliba aan danaynayno inaan sii ballaarino oo aan gaarsiino ilaa South Sudan ilaa Sudan ilaa Uganda aan gaarsiino. maxaa yeelay waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa South Africa iyo West Africa. marka waxaan u aragnay inay runtii ay tahay wax anaga dan noogu jirta oo aan ku xoojinayno dhaqaalaheena, aan ku xoojinayno ganacsatada, aan ku xoojinayno marka arrimaha siyaasadda naftigeeda waxay kabaysaa arrimaha dhaqaalaha oo Soomaaliya in laga joojiyo wax alla wixii fargelin ah. Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya iyo guud ahaan dadka dariska ahna aan wada dhaqanno dad siman. Dowladdu waxa ay sidoo kale guulo waaweyn ay ka soo hoyday shirarkii caalamiga ahaa ee lagu qabtay dalka dibaddiisa. waxa kale oo ay dowladdu ku guuleysatay in sanadkii labaad ay dalka dib ugu soo celiso maxaabiis Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa wadamada caalamka. maadaama aan ku soo noqday dalkayga hooyo waxaan u mahad celinayaa dowladda Soomaaliya marka koowaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, marka labaad ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. alxamdulillah waddankeena Soomaaliya aan ku faraxsanahay inaan maanta imid waxaan xirnaa 7 sano oo aan dalkayga hooyo ka maqnaa. marka laga soo tago guusha mira dhalka ah ee laga gaaray siyaasadda arrimaha dibadda, gacanta kale Soomaaliya waxa ay ku dhisanaysay ciidamo tayo leh oo kooban kuwaas oo ka shaqeeya difaaca dalka iyo dadka, sugana ammaanka gudaha. dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sida waa tallaabadii ugu weyneyd ee uu xoogga saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddada uu xilka hayay. Madaxweynaha ayaa sanadkii labaad waxa uu ku lahaa wasaaradda gaashaandhigga xafiis uu ku shaqeeyo, halkaas oo uu si maalinle ah uga waday shaqadiisa ku aadan dib u habeynta ciidamada. waxa ay sugayaan dadkaas shacabka ah difaacay ka sugayaan waa idinka, waa dhalinyaradiina weeye. waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idil. saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteenna saan u difaacno. ururkii SYL mushahar ma qaadanayn, saas waa ogtiin soo maaha. waxay ka hormariyeen xoreynta dalka iyo ka hormariyeen. soo ma taagna inaan difaacno degaankeenna, guryahan inaan difaacno carruurteenna iyo dumarkeenna soo maaha. ma idinku ballan baa oo ilaahay hortiisa inaad difaacaysaan. 2 sano oo xilka hayay madaxweyne Farmaajo waxaa xoogga la saaray in ciidamadu ay helaan xuquuqdooda sida mushaharka, gunooyinka iyo raashinka.
madaxda qaranka ayaa furay tababaro kor loogu qaadayo aqoonta ciidamada kala duwan sida militariga, booliska iyo asluubta. sidoo kale waxaa isbedelo lagu sameeyay hoggaanka ciidamada iyadoo markii ugu horeysay hormuudka hoggaamada ciidamada loo magacaabay saraakiil dhalinyaro ah oo tababaro ku qaatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. dowladdu waxay xoogga saartay in la saxo nidaamka mushahar bixinta ciidamada. askari walba oo ka mid ah ciidanka qalabka sida waxaa loo sameeyey koonto uu bil walba ugu hagaago mushaharkiisa iyo xuquuqaha kale ee uu leeyahay. dhinaca sugitaanka amniga waxaa isbedel weyn laga dareemayaa nabadgelyada caasimadda Muqdisho. waxaa hoos u dhacay khatartii iyo weeraradii ay shacabka ku hayeen argagixisada, gaar ahaan qaraxyadii iyo inay galaan goobaha shacabku isugu yimaado sida hoteelada. ammaanka Muqdisho waxaa la wareegay ciidamo dhalinyaro ah oo aqoon u leh, kuwaas oo soo jiitay shacabka Soomaaliyeed. qodobka kale ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xoogga saaray sanadkii tegay waa sidii loo xoojin lahaa cadaaladda. inkastoo ay shaqadu wali socoto, haddana waxaa la dhihi karaa garsoorka ayaa ka mid ah xarumaha isbeddelka weyn laga dareemayo. waxaana la xoojiyey tayada iyo aqoonta hay'adaha garsoorka iyadoo la sameeyey isbedello lana soo xulay aqoon-yahano. madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho iyo kormeero joogto ah ku tegay xarumaha garsoorka si uu u hubiyo in muwaadinka Soomaaliyeed uu helay cadaalad ku filan. dadaalka madaxweynaha ayaa laga dareemayaa guud ahaan shacabka, iyadoo markii aad booqato maxkamadaha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan si weyn looga hadalhayo isbeddelka ku yimi nidaamkii garsoorka ee dalka. haddii ilaahay idinka dhigay garsoorayaashii dalka, faa'iidana waa qabtaan, khasaarana waa qabtaan. faa'iido waa qabtaan oo runtii shaqadiinu waxay tahay shaqo ajar laga raadiyo. qofku markuu soo kaco subaxdii uu ka doono ilaa uu ka seexanayo uu ka doono ajar. maxaa yeelay marka lagu yimaado oo dad dhiban ay ku yimaadaan oo uurka ka ooyaya ama korka ka ooyaya idin yimaadaan oo aad siiso cadaalad u baahan yihiin, waxa weeye ajar ka wanaagsan oo qof bini aadan ah uu ilaahay ku abaalmariyo ma jirto. dhibaato waa qabtaan oo qofkii runtii leexiya cadaaladdaas oo qofkii dhibanaa dhib ugu dara. runtii waxa weeye waa dambiga ugu daran qof bini aadan ah uu geysan karo. maxaa yeelay qofkaas waa meesha ugu dambaysa uu ka soo raadiyay cadaaladda. Soomaaliya waxyaabaha ay ku kasbatay ammaanta bulshada caalamka waxaa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha iyo maamul wanaagga. qodobkan ayaa ah mid ay uga duwan tahay dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo dhammaan dowladihii kale ee dalka soo maray. Soomaaliya ayaa markii ugu horeeyay yeelatay golaha dhaqaalaha qaranka. waxaa digreeto ku magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. golaha waxaa ku jira aqoon-yahano Soomaali iyo ajnabi ah oo ku xeel dheer dhinaca dhaqaalaha. magacaabista golaha ayaa aad loo soo dhoweeyey, waxaana ay dowladda kala talin doonaan dhinaca dhaqaalaha iyo xisaab wanaagga. dowladdu waxa ay baarlamaanka hor dhigtay hindiso sharciyeedyo wax badan ka bedeli kara dhaqaalaha dalka, kuwaasi oo qaar ka mida la ansixiyey, kuwo kalena la filayo in la ansixiyo. golaha shacabka ayaa ansixiyey sharciga hantidhowrka qaranka, waxaana kaloo jira in la joogteeyey bixinta mushaharaadka iyo gunooyinka hay'adaha amniga iyo shaqaalaha rayidka ah. waxaa kale oo ay dowladdu samaysay ama ay ku guulaysatay in dib loo soo celiyo maamulidda hawada oo iminka laga hago Muqdisho, taasoo gacanta dowladda ka maqnayd muddo ku dhow 27 sano. waxaana lagu macneeyey dib u soo celinteeda in dib loo soo celiyey qarannimadii Soomaaliya. tan waa bilow oo ah inaan xoojino qarannimadeenna, inaan xoojino waxaa noogu xigi doona insha Allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqa ah inaan soo ceshano kontroolka baddeenna muddo kooban dhexdeeda, aan soo ceshano oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudubta oo maxaan ku yidhahdaa khayraadkeenna maalin iyo habeen gurata, inaysan jiri doonin cid istiraada meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda. waxaan rajaynaynaa hadduu eebba yidhaahdo iyadana muddo kooban, muddo yar dhexdeeda inaan gacanteena ku soo celinno oo ninkii ku xadgudba baddeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha Allah hadduu Ilaahay yidhaahdo. hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa qiimaysay waxqabadka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, iyadoo ku ammaantay dowladda Soomaaliya ee hogaamiyo madaxweyne Farmaajo sida ay u muujisay nidaamka daahfurnaanta leh ee dhinaca maaliyadda iyo isla xisaabtanka ah, iyadoo la raacayo weliba barnaamijka SMB oo ah kormeer ay sameeyaan shaqaalaheeda, iyadoo lagu tilmaamay mid lagu qanacsan yahay qaabka daahfurnaanta maaliyadeed ee sanadka 2018.
waxyaabaha kale ee sanadkii 2018 la qabtay ee ku aadan dhinaca dhaqaalaha waxaa ka mid ah ansixinta miisaaniyaddii 2019 iyadoo miisaaniyadda dowladda uu ka muuqdo kor u kac aad u weyn. waxaa lagu rajo weyn yahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada. Markii dowladda hadda jirtaa ay iyadoo aanan gaarin 6 bilood bishii shanaad ee jiritaankeeda laga soo bilaabo ay magacaawday la taliyaha madaxweynaha ee doorashooyinka iyo dimuqraadiyiinta. sidaas darteed maadaama ay dowladdan gacmaha u duubatay sanadka koowaadba 6 bilood oo ugu horeysa gudaheeda in arintaas laga shaqeeyo laga baaraandego ee siyaasiyiinna la isku raaco waxay runtii calaamad weyn u tahay in aysan sidii hore u dhici jirtay sanadka ugu dambeeya ay noqoto doorashada waxa laga fikiro kadibna la yiraahdo waqtiga noo haray kuma filna doorasho. Tallaabadii ugu horeysay ee dhinaca doorashada loo qaaday sanadkii tegay ayaa ahayd in madaxda Soomaalidu ay ku heshiiyeen shir ka dhacay magaalada Baydhabo nooca ay doorashadu noqonayso, taas oo lagu heshiiyey inay noqoto mid xisbiyo ah oo ay dadku codeynayaan. sidoo kale waxaa si xawli ah ku socda dhamaystirka dastuurka qabyada ah oo la filayo in bartamaha sanadkan lagu guuleysto dhamaystirka dastuurka. waxaan ku rajo weynahay waxyaalaha technical-ka ah oo iyo heshiisiin siyaasadeed u baahan oo dhan inaan kusoo dhamaystiri karno ilaa March. wixii markaas ka dambeeya dastuurka dhamaystiraya wuxuu u baahan kaliya in la marsiiyo baarlamaanka, taasna shaqo noo wada taalo. intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay waxqabadka dowladda ee sanadkii tegay. inkastoo halkan ku soo koobi karin guud ahaan waxqabadkii dowladda, haddana waxaanu idiin soo gudbinay intii aanu islahayn waa ugu waaweynayeen.